بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الوزراء حكومة جمهورية الفدرالية الصومالية waxaa maanta uu kulan la qaatay safiirka ama danjiraha dalka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Ambassador Yamamoto kulankaas uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Ambassador Yamamoto waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dalka amniga iyo guud ahaan arrimaha bani'aadminimada ee Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay in uu doonayo in doorashada ay ku dhacdo si dhaqsi ah isla markaana uu ka shaqeynayo sidii dhammaan dhinacyada oo dhan ay ugu qancin lahaa sidii doorashada horey loogu wadi lahaa waxa uu sheegay in dhinaciisa aan wax dana ka lahayn ama aanu danaynayn in shakhsi gaara uu taageero laakiin ay ujeedadiisu ugu weyn ay tahay sidii doorashadaas si nabdoon ay ugu dhici lahayd loo wada dhan yahay dhammaan dhinacyada oo dhanna ay raalli ka wada yihiin waxa uu sheegay inaysan jirin murashax si gaara uu taageerayo balse ujeedkiisu ugu weyn ay tahay in doorashada lagu qabto si daahfuran dhanka kale safiirka dalka Mareykanka waxa uu sheegay inuu taageersan yahay dadaalada doorashada ee uu wada ra'iisul wasaaraha sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in ay dawladda Mareykanku ay taageerayso in ammaanka ay ka taakulayso Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab waxa uu amaanay dadaalada iyo howlgallada ciidamada ay ka wadaan dawladda Soomaaliya ee militarigooda gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellada Dhexe isagoo oo sheegay in howlgalladaasi ay yihiin kuwa aad muhiim u ah isla markaana ay dawladda Mareykanku ay garab taagan tahay sidii Soomaaliya ay nabad u heli lahayd arrimaha kale ee laga hadlay waxa ka mid ahaa arrinta gargaarka oo runtii si weyn looga hadlay arrimaha kale sida aadka looga hadlay waxa ka mid ah arrimaha gargaarka gaar ahaan daadadkii dhawaan ka dhacay Hirshabeelle iyo sidoo kale ayaxa ama aafada ayaxa oo had iyo jeer ku soo noqnoqota Soomaaliya sidii xakameyn loogu heli lahaa kulanka kadib ayaa waxaa isna kulanka ku soo biiray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug Axmed Qoorqoor iyo Cali Guudlaawe waxaana guud ahaan kulankoodaas maaragtay in looga hadlay xaaladda dalka iyo guud ahaan arrimaha doorashooyinka iyo arrimo kale oo maaragtay quseeya bani'aadminimada marka kulankaas waa uu soo gabagaboobay si maaragtay kulankana waa uu soo gabagaboobay